كودن بي قاب تسميتك ديجانك يسبدل في عمل مسمي حكومتنا مارتنا وأمهات نقلنا آدنا ونسر دويننا لكن ولي دنبل ما تقانا يسبدل كاس وحي كتب يسبجل هذه أنا شعب كدقمة دنبل حكومة دقمة إن حكومة ديجانك يتنفض رالك وحن كعصنا ناحية بان كمال إنه نجارسيو إن قاب دسمتك وحياة بدن ومتقاناي أن كفيرني أنا كهري مركنا كعصنا أنا جوانا كرجلين أنا نتاجنا هاي إن كهلنا إن قاب دسمتك اللي بالله أن كقريب نقمه إسلام مركنا عن هلنا مرتنا قبل يدقمين يوحي عن حقوق لها تنبل كلية تبا وحي وقيس بكرتا أفدم أيضا ساستاهي عندنا حكومته نبي إلهي لكن إن ينوم قنطها بارتينا نوصص marka waxaan ku xoojinayaa maartaanay baahiyaha iyo cabashooyinka shacabka ay soo bandhigeen inaan nagala qayb geliyo mataqaanaa qaab dhismeedka deegaanka oo aan helnana mataqaanaa gobolada iyo mataqaanaa degmooyinka la bixiyo wixii anaguna aan xaq u lahayn tusaale ahaan inaan helno gobolkii Harawaan xildhibaan waxa tahay xildhibaan waxa weeye bulsho laba gobol degtaa waxa weeye xildhibaan oo abaad tahay haddii la yiraahdo hawsha waxa weeyaan horumarka deegaanka ka dhacdayna de waxa weey dadkii aad matalayso kulli waxa weeyaan dayac badan bay duruufta umma ka tirsanayaan horumarkii ma soo gaarin hawsha waxa weeyaan taxalluqin baan ku leenahay Allahi wa barakaatuh inta kadib dawladdu danaha shacabka iyo dalkaba waa wax loo idmaday weeyaan si guud waa wax loogu idmaday si gaar ahaaneedna waa wax loogu idmado xildhibaan Kamaal heer deegaan heer federaal buu inoo matalaa degmada Awbare iyo degmada Dambaleed inuu wakiil inoogu noqdo iskii aan dooranay weeyaan inuu inaga warhay waayo waan ku dhaliilaynaa laakiin nasiib wanaag saddexdii bilood buu mar haddaan khaldanayn kay noo yimaado weeyaan xaaladdu kolbad siday tahay inakuna warbixinta siino isagu wuxuu wadanay noo keeno weeyaan aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa marla waxa la saabay faraareen waxay oo qolkii xildhibaan Kamaal oo buluugnay bulshadiisii qaybaha kala duwan markaas sida fiican ay soo baxdeen dhammaan bulshada qaybaha kala duwan ee garabka dhalinyarada haweenka culumadiinka golaha hogaaminta dhalinyarta aad iyo aad badmaasantay بعد سلام كل حكسو دوين دونا اللي ما كمان سو وجه ديو هالكن مدرسة هذا لفة فاصل أو قصة منطقة وحوية نيو وجه دونا هذه أدب ما ستين على سودو يحجون سودو يحلو. إني دورتي وأنا دوت تان وفوق تكسوق عدان مرقتهم بنوصو داعي تاني أنت دورتين بقى وهيلاقي مهدي مرة بين جماعنا باقن هذا مركه كلام مركه مراها كلام فوقان كري وينو ويران عاصمة دقمة دمبل بان معنا مركا هؤلاء بان هذا نوصو عنا وهي باهي جرا مركز سبب الجبين جرينا جبينو اللي بعنا ذاك اللي هير ديجان هؤلاء كسوق الرصاص ما تيجي للصون لكن وهي باهي إن خصيصا هير ديجان هذا أنا تي هير ديجان إن شاء الله مسؤولين هير ديجان مقول جندنا وهي هير فدرالنا إن شاء الله هير فدرال مقول جندنا marka haday tahay uqaasha haday tahay dhalinyarada haday tahay haweenka iyo haday tahay aqoonyaanka dambal aad iyo aad u maasantiin maadaama soo ajiibteen idinkan makroonka nagu wareejin doona dawladda assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh inta kadib dawladdu danaha shacabka iyo dalkaba waa wax loo idmaday weeyaan si guud waa wax loogu idmaday si gaar ahaaneedna waa wax loogu idmado xildhibaan Kamaal heer deegaan heer federaal buu inoo matalaa degmada Awbare iyo degmada Dambaleed inuu wakiil inoogu noqdo iskii aan dooranay weeyaan inuu inaga warhay waayo waan ku dhaliilaynaa laakiin nasiib wanaag saddexdii bilood buu mar haddaan khaldanayn kay noo yimaado weeyaan xaaladdu kolbad siday tahay inakuna warbixinta siino isagu wuxuu wadanay noo keeno
weeyaan aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaynaa waad mahadsan tahay madaxdeena degmadu had iyo jeer waan wada joognaa baayaha wixii jira waan is dhaafsanaa wixii tamartoodana way geediyayaan oo way wadaan taas waan sognahay iyagana laakiin maadaama ay idma yihiin de kolley hawlu joog weeyaan iyakuna wixii dhib jirtay wixii aan shalay sheegnay maxaad ka qabateen waan la garab taagannahay maxaad ka qabateen waxaan shalay sheegnay waan la garab taagannahay iyakuna way arkayaan taana gacani gogeed biyo kama aragtaa la yidhaayo waa wax u muuqda iyadana taas annaku haddaan reer damaleednahay aad iyo aad baan u fiicannahay nabadgelyo wanaagsan baan haynaa baahyaha iyagu way iska badan yihiin waana sheegnaa heer federaal haddii laga yimaado waan sheegnaa heer kale haddii laga yimaado waan sheegnaa heer gobol haddii laga yimaadana waan sheegnaa wax la qabtaana wuu jiraa wax dhimanna waa jiraa waxyaalaha la qaban way jiraanoo waa la daalsannahay laakiin waxaa ka mid a biyaha laguma filla biyaha hal ceel weyn laguma filla waan sheegnaa wax noo hirgelima hal ceel baan leenahay halkaa ceellan laguma filla daad baan ka hadallaayo magaalada qaada waan sheegnaa naguma cusba adiga kuguma cusba hataa kamaala bala naga maqan kuguma cusba inamada degmada noo joogana waan wadaagnay had iyo jeer taana waan rajeynaynaa dariiqyadu way naga wada go'an yihiin dariiqyadu way nooga yihiin dariiq halkaa maray dee wax udan yahay waa jiraa laakiin degmada iyadan degmada udan maaha waxba wax yar waxba faa'iido asaasan nooma laha dariiqyadii nagu xidhaya meelaha kale waa naga go'an yihiin taasna dee ilaahan kama daalayno hataa dhib nagu tahay ma daynayno inaan sheegna hadday dhib ku tahay ma daynayno waan sheegaynaa waxaan looga qabtaan leenahay laydhkoo kale maalmana uu jooga inta badan uu naga maqan yahay isagana inta badan isaguna uu naga maqan yahay waxa weeye waan rajaynaynaa degmooyinka gobolka iyaga gobolka city mashaariic fara badan waa 11 degmo mashaariic fara badan baa sanadka laga qabtay loo dhagax dhigay waxba kagama jirno damar haddaan nahay waxba kagama jirno gobolkan waxa la leenahay taa waxaan inta saan leeyahay xogaal saas ma yihi laakiin saan maqlay waxba kagama jirno degmooyinka kale ayaa wax badan way heleen taasna de wixii tagay wixii dambe tima inta la xiiray iyo inta la xiiri doono mid ka badan baa leeyahay inta la xiiri doona badan de baahida way dambeeyaan oo sanad iyo 2 iyo 3 midna maaha wax ku dhamaanay maaha taana waan daba taagannahay raxiim magacaygu waxa la yiraahdaa Sakariya Aadan Cabdilaahi oo dhashay degmada Dambal duqaytideedana kamid ah culuumadiinka dhalinyarada haweenka madaxda heer federaal nooga imatay dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib hadalka nuxurkiisa baa laga hadlaa intii ay baahida iyadu ugu xumayd walaalkay ugu horeeyaa sheegay laakiin waxaan ku darayaa inuu xoojinayaa waa daadka magaalada dhibaato badan buu nagu hayaa xildhibaan daadka magaaladu dhib badan buu nagu hayaa magaaladu meel xaafada huunan gelin ma jirto halkan booliska horteedu maraa waad soo marteen imika waad aragteen daadka waxa noogu dhib badan ee dhibaatada ugu adag imkaan kaga jiraayay waa daadka 100 jeer baan sheegnay wasiiradeenna madaxweyne ku-xigeenka wax intii halkan noogu imato dhammaan waan gaarsiinay weli wax la noogama qaban xildhibaanka heer federaal adiguna ayaa tahay maanta hadduu ilaahay nagu kaa keenay waa mahad ilaahay daadkaa horta in la noogu horreysiiyo naga qabto ayaan hadalkay qodobka ugu adag kaa weeyaan ka labaad biyaha walaalkay baa sheego dee waa ceel kale naguma fila magaaladu maanta 2,000 oo qoys sare u dhaafsan tahay dhaartii biyogelinta lanoo sameeyena meelaha 60 qoys iyo 70 qoys meelahaan baabanahay maanta halkaa bay maraysaa taana naguma filo taana
هلا نوجا جوابه وحن ربنا إلا نوع قضاء عيل كلا أوريجا أو نجارسية بيها بالشد ويبدن تاي تدخل ترميا ولا بلارنا يا تانا إلا نجار ترول نوصمي أيان جعل هاي أون عطسنا إننا طريقي لنوع بلنقاضي وحي نقول لا يريد العر هي كي هالكنجير كسر داعي لبض ميت بولي وحلا ما قبل لبض ميت بولي وحلا نوع ما قبل حلما وحلا أنا هذا وده وصامت وعن ما لين يا مركات كثر تكسر داعي هنا تجاري كذا داعي هذا الحاجة طلعت صومري مركات دبعتها أنت على وطلعت أنا وين هاي سا وقاد بينه هاي سا حق الله حاجة داعي سما ما نوبنا إنها قام دكار كيسام حاول لك شيء وهذا كيسام تا طريقنا هل نود الدجوه دجمويك بانك متنا هاي أنه دجم كللك ما مقال ما راح يتكلم بنوجرو شن اللي 2 كيلومتر وهذا بلا طريقة وادب تانا النوجر مثلا لنا نوقفته وهل نوزد الدجيو وحيالها عن شيئا إنه ده إن كستوي هولو يسكب بدينين هذا نيم كوبا سيداران منه waxa ugu muhiimsan waa inta walaalkay uu sheegay annaan sheegayo walaana inta wax la nooga qabto kuwa heer deegaan ay naga maqan duqeyda culimada haweenka dhalinyarada si fiican u soo abushay ee shirka ka soo qayb gashay dhammaanteed degmada Dammal waxaan leeyahay salaamantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh salaanka dib horta qofka bilaadamkee ka horeeya hadduu codadka helay inta loo baahnaa in lagu taageero un baa wanaagsan horta way heleen degmada Dammal ilaa sidii loo dhisay waan cabanaa cabasheedu waa aad u taagan heer deegaan waan u sheegnaa heer gobol la waan u sheegnaa heer kala la waan u sheegnaa heer federal waan u sheegnaa wax qabadku saas uu yahay waa adiga arkay xafiiska nimka la joogo dowga nimka magaalada wax laga baglaa la laayay waxaan u baahanahay barnaamijka la sameeyay biyo gelintu waxay ahayd magaalada oo 100 qalaan qaaleen baa loo biyo gelin lagu sameeyay waxay u baahan tahay degmadu in biyo gelin mashaariic loo keeno oo meel walba sideeda loo gasho way ayaa loo baahan yahay wax kasta hadii imika la qabto oo biyo gelin loo sameeyay waxba kama qabman noqonayso isma gaadhayso dadkii ma baahay maamulku isku day solar baa la doonay meel walba la doonay caadi baa lagu talaalay wixii hadana dadkii biyo ma gaadhayaan iyagoo hawsha inta loo tagay habeen iyo dharaar waxa u baahan tahay biyo gelin ballaaran in degmada lagu saleeyo oo tibeyska lagu sareeyo oo lagu sameeyo loo baahan marka labaad xagga leydku anaga leydku horta wuxuu noo yahay malaha maalin bishiiba bil baan la malaha dhowr bilood halkaan joogno leydku sida xan weeyeen isoo waan u baahanay baahida leydku aad bay noo haysaa wax kasta oo dhan mishiin la kiciyo maayna ma hela kani يوم بانو هلا كان إن لا يتسيد وانو عبنا عبشيد إذا كقبنا ومثل بعض وضدوا أنت توين نسوق السواد سوا وددينا وضد كاي مرتا عرف بس النجا مرتي قريب تبلشة الدجمة الدمبل فايب عرف كده بالنجا مرتي وحنو بعنا أنت تير نلاص سماينا يو ثنا جاي غير نلاقو سيد عادي نوصي مرتا ودد عنا نلاص سمايو تير نسيد نلاقو سوقش degmada haddaad xaan ka baxdo bari u baxdo meelaad u baxdo ma jirto way xiran tahay hadda ay u dhacato umuli maanta dhacday dhibteeda haysata ambalasyada waxay wada galayaan waxaan leenahay baacisha cibaadana haysata baahida waa inuu mid labaad biyaha magaalooyinka ka soo baxana meel daakilan alla waa buurba biyo ka soo dhacaya meelaha beeraleyda dixaa soo wada galay garbooyinba wada gooynaya waxaan u baahanahay cagafyadan meelaha biyaha lagu kala leexinayo bulshadu si wax uga faa'iideysatana degmadu waa u baahan tahay maadaama biyaha garbay ka jiraan biyaha maanta halka ku daabeen dambe waxay tagayaan Djibouti bay tagayaan oo wadanka ugu hayaan kuma shilmayaan wadanka in biyahana loo siiyo cagaf caynkaas oo degmada kala weeciisa oo meeshii u xusii qabatana waan u baahanahay waanan cabanaa cabashadeeduna tii ha noqoto maanta wax lagu helayaa noqoto wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dibta oo dhan waxay ku dhacday waa haweenka waxa weeyaan annagu waxaan nahay hawl wadeenkii baan nahay hawsha oo dhan ay ku dhacaysay
biyaha hadii la waayo rag warmahayo waxa way jawaageed sarwaab annaga un baa waxa way dhabarka kaga jabna annaga un baa dixo waroorana annaga un baa naanawna dhibta annaga ma nagu dhacdaa waxa way jaan xildhibaan waxa dad wax nooga qabanayso biyo la'aan wayna haysaa waxa way jaan dad waxa jira aan sida baambidaha loo galiyo anan ilaa xilliga anan biyo dhixeen mooyaan aan biyaha baambada anan arag waxa way waxaan leenahay biyaha waxa la nooga qabto salaanka dib هذا أنا هذا يوم عيش ده بلسني واي هذا شيء رجينا وهذا هذا شيء نوع مال هير كله الدوانات علدبان مدحوينا كحيدين يا حلدبان يا معهنا مسؤولين كدجمدا أنا وأفكر إيا لبعتن كبلاد بيشي صورة تبعوهين على حلوان ودناو هنسوابنا ولي وحنا هير جري الله نودا مجد تيلا هينا وينون مقنطه biyo markuu sida cirku u doo xalay oo kale qofku dixdu sida u socoto gabadha haday dhowr dumari fool qaadaan balaas meel noo maray ma jiro meel nooga soo galay ma jiro hadduu halka uu ku godoomo hooyada dhalaysa halka ay ku tiyay ku dhimanaysa deegaankadan mooy wax la nooga jeedo haday taa ka soo dhaadhacaysa dulcad haday ta kale xagan ka dhaadhacaysa tahay hadal waa wadnaaw arooyinka tuulayna way garab tuulay wax sala noogu cadaynayo waxa weey dawladdu hoosa noogu dhaadhacdo shacabka ha aragto degmada dambaleed de ujeedada la naga leeyahay dhagax baa saaran oo dhagax Allah naga dul qaado sida degmooyinka kale degmo kale sida dixway martaa dixda waxa loo sameeyaa kaabado wax shiloo baabuur ma helo wax hooyo oo dhalaysi marikato midid bay jigaaga ku tagaysaa ma dirdhabo annaga laakiin meel uu baabuur noo soo mari ma jiro hunguri waxba maaha awaas waxba maaha wax kale waxba maaha hooyadii baa khatar ku jirta dekadii baa kala xidhaya maanta talaaday ku gasho dixda geerkeeda qof iyo adduunyo kaaga oodanto meel aanu maraa ma jirto halka ku kala godo dawladdu hana aragto oo foorarsato dekedahana hala loo hagaajiyo shacabka cabashadiisana hala maqlo waxba in la nadayelsan dalkaayo waligeed adoo caruuraba xildhibaan warsan joognaa ya halkana kuugu ciyaarna kuugu qabanay sanada kor bay ahay waa naga qaaday arrinta madaxweyne ku xigay waa ku soo dhaweynay wali waxba la nooga qaban imika naga sugaynaa shacabka inta leeg dhibta haweenka ayaari haween baar ragwa awde ragwa geesarwaaq awna ma loo horaa loo yiri halka haday hooyo ku godoonto oo umushi ku godoonto ilaahay baa ka dhalin waa run laakiin annaga u bay meelino go'ay inakiya ilmahaadi oo foolanayo oo ambalaas way u daadooday oo ambalaaskiisu uu soo talaawi waay dhibteeda ay leedahay وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وحسود وين حلبان كنا حلبان كمال حاش محمود وحنكون سود وين صلاة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهى بعد كل هذا أنا هري لو ما أمي وحريري محا هري بالله الله هو يقول رسيبه هذا الدميسي دمبل باهي مارتاني مام قبل هذي تايو كديجان هذي تايو عبشير ما دمات بقول كي بقول وحن تاجنا هي هل كي مارتاني عن لواتن خصنا كورة تاجني إلا هي هتنا مارتاني وحير سكر ذي وحفظ ويا إن صلاة سوقات قبل كستي وحامر لواتن لامي محمود أو قاقابني وأوي مسكوجة دمبل أو كذا تلبل لامي أمر حرمتي مجال تقبل دمنا وبلا وضع تاسي واحد قاعدين سامعني هير كتاجنا هرمرك بيلان ولا شيء وحبرش ولا شيء عافماد ولا شيء وحول ولا شيء الآن ضاد أنت كسكو إن واحد جتا أو ما تقانا ينقص كل لها أنت وباهيه إن أي شيئا شعب كيجوه ريال كهالله وحنقص كل لها واحد جري يكون بيه قاب تسميتك ديجانك يسبدل في عمل مسلمي حكومتنا مارتنا وأمهاتنا قلنا آدنا ونسود ويننا لكن ولي دنبل ما تقانا يسبدل كاس وحي كتب يسبجل هذه أنا شعب كدقمة دنبل حكومة دقمة إن حكومة ديجانك يتنفض رالك وحن كعصنا ناحل دبان كمان إنه نجارسيو
in qaab dhismeedka waxyaabo badan oo mataqaanaa aan ka filaynin aan ka helin mar kalena aan ka codsanayno annagoo aanan ka rajo dhigayn aanan u taagannahay inaan ka helno in qaab dhismeedka la ballaariyo aan ka qayb noqono isla markaana aan helno maartaane gobollo iyo degmooyin iyo wixii aan xuquuq lahayn dambal oo keliya taybaa waxay u qaybsami kartaa 4 degmo ayada saas tahay haddana xukuumaddu naba ilaawin laakiin inay noo maqan tahay baan rajaynaa nagu soo socoto marka waxaan ku xoojinayaa maartaanay baahiyaha iyo cabashooyinka shacabka ay soo bandhigeen inaan nagala qayb geliyo mataqaanaa qaab dhismeedka deegaanka oo aan helnana mataqaanaa gobollada iyo mataqaanaa degmooyinka la bixiyo wixii annaguna aan xaq ugu lahayn tusaale ahaan inaan helno gobolkii Harawaan ayaan halka ka codsanaynaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين horta ilaahay baa mahadle waa maasha ilaahay waa mahad ilaahay maasha Allah mar hadii inagu caafimaad qabna aynu halkan wada fadhino wax ku sheegayno xildhibaankeena hor fadhiyo xildhibaanka waxaan leeyahay horta marka koobaad in kuwa dhinaama taaw welcome ahlan wa sahlan soo dhawow xildhibaan ma kula horta waxa weeyaan marka guud wani wada salaamo salaanta islaamka nabi sallallahu alayhi wasallam alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh bacda salaam kullee waa laga soo wada hadlay waxa weeyaan baahida degmada laakiin degmadu horta duruuf iyo dayac badan bay tirsanaysaa oo xildhibaan waxa ku leenahay de baahida markastoo imato waa la sheegayo waa lagu sheegaa laga wada hadlaa maalin walba halkii bay taagan tahay ilaa intaas sharaxan tahay xildhibaan ka tahay marka waxaan leenahay qaybta laga soo wada hadlay waxa weeyaan u horeyso wadada waxa weeyaan ay ku xigto leyrka biyo la'aanta iyo networkiga waxa weeyaan isaguna de cadceeda uu ku shaqeeyo waxa weeyaan de daamkii darajada lahaa darunta hadii uu dhaar saaro waxa weeyaan aan habeenkii shaqeynayno cadceeda ku shaqeynayso iyada in wax looga qabto baan u baahannahay hadii la yiraahdo waayo networkii ma jiro hadii ay gaadho maalinta uu fadjiro oo waxa weeyaan gaadho habeen networkigu ma shaqeeyo xaaladaha hadda jirana waad ogtahay hadii waxa weeyaan xaalad dhacdo ama hooyo wax noqoto ma jirto waxa weeyaan networkii xarunta caafimaadka lagula xidhiidho ma jirto waxa weeyaan qaybta networkiga wax ka qaba ku leenahay hadii uu alla yiraahdo de kulay degmada dambal waa la wada garanayaa oo degmooyinkii deegaanka ugu horeeyay ugu dakhliga badan leh ugu dhow deegaanka bay kamid tahay uguna shacabka badan leh iyadoo taas tahay bay haddana waxa weeyaan ka dayacan tahay horumarka deegaanka ka jira waxba ayna ka soo gaarin waxa weeyaan dariiqa inta deegaanka u jirto waa la wada garanayaa dhulka fog baa waxa weeyaan laamay wada dambalo inta u jirto oo kiiloomitirkeeda la garanayo oo degmooyinka deegaanka ugu dhow ugu hor magacawnayd dakhli haday noqotana waxa weyn ugu liidanin ugu horeysa ayaa waxa weyn dayaca tirsanaysa inta inaad waxa doonayna taayto qaadato dusha saarato hadii la yiraahdo oo waxa weeyaan de aad ka soo gaar baxdo oo waxa weeyaan horumarkii iyo wax qabadkii ay lahayd inaad de wax ka qabataan rajaynayna midna aanu soo noqdo waxa weeyaan xagga dhalinyarta hadii ay noqoto de waxa weeyaan dhalinyartu horta waxa weeyaan de qaybtoodii way ka dayacan tahay oo waxa weeyaan duruufo badan bay tirsanaysaa ha ugu horeysa degmooyinka la midka ah kulliyada waxay leeyihiin waxa weeyaan tiknikada lagu barto dambaloo dhalinyarteedu inta leeyahay baa degmo kale loo diraya inay tiknika ka soo barato marka waxaan u baahanahay riisanka keenay in degmada dambal loogu sameeyo waa tiknika ama meel waxbarasho oo dhalinyartu farsamada gacanta ay ku barato inaad taa dusha saarato oo wax ka qabato ayaynu rajaynayna hadba leedahay dhanka kalena waxa weeyaan dhalinyarta la didinayo ee waxa weeyaan iyadana in laga war hayo oo waxa weeyaan xaaladaha jira la yar weydiiyo oo si hoosaanad loola hadlo oo waxa weeyaan de waa dhalinyar iyo degmadeedii iyo maamulkeedii in si fiican loo wada shaqeeyo oo wada shaqeyn la yeesho imika tusaalaan markay xaaladdu murgaan de odayada waa loo yeedhayo oo seen wax loo qabanaaba la yiraahdo waa la wada war markay xaaladdu waadax tahayna waxaan doonaynaa in la wada tashado seen horumar gaarnaa wax wada qabsanaa u wada tashanaa in la yiraahdo oo cid walba waxa weeyaan la xidhiidho ayaynu u baahannahay hadii waa la yiraahdo midda kale taa networkiga aan kugu adkeeyay waxa weeyaan networkiga ha laga warhayo waa main pointiga waxa weeyaan hadda waad ogtahay xaaladda networki la'aan cid walba waxay ku sugan tahay haddii aan networki ka jirin de waxa weeyaan xaalado badan baa wurgaya oo hooyooyinku ka mid yihiin haddii ay wax noqdaan taana in laga warqabo baan rajaynayna midna aanu soo yara noqday waxa weeyaan xildhibaanka waxaan leeyahay de xildhibaan waxaa tahay xildhibaan waxa weeyaan bulsho laba gobol degtaa waxa weeyaan xildhibaan u abaa tahay haddii la yiraahdo hawsha waxa weeyaan horumarka deegaanka ka dhacdayna de waxa weeyaan dadkii aad matalayso kullee waxa weeyaan dayac badan bay duruufta ka tirsanayaan oo horumarkii ma soo gaarin hawsha waxa weeyaan isku taxalluujin baa ku leenahay helida waxa weeyaan gobolkii dadka aad matasho ama waxa weeyaan qaybtii ay de ka mudnaan in la siiyo isku yarta taxalluujin baa ku leenahay kullee taa in dadaal badan ugu jirto waan aragnaayo social media wala la wada socdaa waxa wad kuna mahadsan tahay sida dadaalka ugu jirto marka isku yarta taxalluujin baa ku leenahay midna aan ku yar sii raaciyay waxa weeyaan waa mid adiga aan ku farayo hadii la yiraahdo waxa jira waxa weeyaan wiil wariye ah oo Qadar Maxamed Ismaaciil la yiraahdo xildhibaan tahay bara
وحوي جامعتنا هاجري إن هذا سجن هوشي هدي الله يرضى سجارة هذا كوير فريا أنا خير هول قشوا وحويا دينو باهي شعبه وكل هذا وهذا كل حرية هي إسكوار تعلوجيا وحويا هوش هذا الله يرضى خير هول قل أدبار بمعتصة حلبان وحويا سيف عمك سلامة السلام يا كسب قبلياشان يرضى ويلك هوينك مسؤولين تو ريح لما كمال إلى المسؤولية دي المثلية إن هرت باهي ولا صوت الشيء haddana baahidu waxu baahan tahay nimada si uu kala culus in loo kala qaado khaasatan xildhibaan kamaal dambal kaliya ma matalo xumatala inta uu degmo haba soo darnaataa dambal u jooga Soomaa dambal baahideeda ma soo koobi karto xildhibaan ilaahay bana baahida qaadi kara laakiin wixii asbaab bilaadan qaban karo in lagu sheego gudbiso dulba ka soo jawaabto ayaa ila qurux badan adigana xilka aad ku haysaaway aan ku soo noqdo qodobkayga marka hal doona laba qodob baan ka doonaa labada qodob waxay kala yihiin horta mid hadda laga dhawaajo waa network amaanteenka oo adeega u weyneed adduun hadda qorsada weey dib aynu celiyay hal sano ka hor deenagu ciidii waxaan ogaanay miskiinkan u eegaynay dalkii la eegi jiray Sacuudiga eegay inta aalada technician ku eegay waan ka maqnay culimada telefoon maxay ku hadlayeen culimada naga la mid tahay annaga ba ka hor intii waxaan u keenay annaga inaan ciidda xataa maalinka ciidna ku sugan waa ku laba dibta u weyn laga cawdo wax kale wasale leh hooyo uur leh network baad kuka in la ilaahdo maariya xarunta caafimaadka ambalaas wada hooyo aan bugtay taasina network ay haysataa network kullu ugu badan yahay hawshiisa ama safrintiisu waan dhaafaya waxaan u gudbayaa qaybta dhalinyarada qofka ama wadanka ama deegaanka ama dalka mustaqbalkiisa waxa laga eegaa dhalinyarada hadday mabda'iyan qaldan yihiin aqoon ahaan liitaan way arag lahayn bulshadaas way dabar ku aysan oo maanta iska daadaan xagga tolka u noqdo waagii hore labada qof ay islaayaan marka ay wax isgaarsiiyaan ayuu tolku soo dhax galaa inta kale laga qaban maayo marka uu kan nabur gaaro kana uu kiina bugeeyahay ayaa la yiraahdaa hay geedkayna fadhiisiya hadda timo joogo laakiin hadda waxa la joogaa maskaxiyan buugay qalin hadii laga sii gudbana teknolojiyada maraya hadda laptop waxa ka falbu diyaariyaa telefoonkan haysto awaamir kasta ay ku jirto qofka marka la xiro kan baa laga xareynaya laakiin waaga hore saafka midida guduntan gool waxa laga reebay boqorada ay waayeen abaasha watan hubka lagu dagaalamo ka marka dhalinka hadii maanta waxa halka ka furan xarun noocaas oo 10 sano ma hima inta ay joogaan gudoomiyu way xiran tahay binidinta aad baad maasantiin waxaan ku jirnaa guntiga gabagabadii aan ku jirnaa aad baad maasantiin shacabka qaybaha kala duwan su'aalaha aad soo dhigteen baahiyaha jira kulli inta badan haddana koorno aad ka hadasheen meelo badan waan ka hadalnay fagaarahan waan ka hadalnay waxa ugu daran waa biyaha laydhka iyo nadorkiga saddexda qodob ugu muhiimsan waa saddexda bulshaduna aad uga hadlaan biyuhu waxay ku jiraan waa labada biyood kuwa la soo kuwa micnaha mataqaana nadiifta iyo kuwa roob ka imanaya weeyaan daadka magaalada kulli waxaan u diinaa hawlahan maadaama federaal yihiin oo la xiriiraan arrimaha federaalka xildhibaankeena maadaama uu joogo nadorkiga iyo laydhka iyo hawlaha daadleexinta kulli culayska degmada way ka badan tahay marka xildhibaankan u diinay kulli inuu ka jawaabo su'aalaha insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo waana su'aalo macquul ah oo baahi jirta oo aan ognahay oo meel kasta aan gaarsiinay ilaa hadda laakiin aan jawaab wali aan helin weeyaan bismillah horta waxaan aad inaga mahadnaqayaa maadaama aad dareenkiina si cad aad u muujiseen annagana maadaama uu tashi u nimid qof walba inuu fikirkiisa cabiro hor baan uga dhignay sabab baan wax la isla qabsan karaa sidoo adeera markuu ugu horeeyay hadlay wixii baayaha intooda badan horeyna way jireen laakiin maanta waan ku celcelinaa guud waa runtii baahida inta la qabtirayo waa in lagu celceliyo aniga iyo xildhibaanada kale ee degmada Dambal heer deegaan ku matala anoo ku matalo federaalkaba awoodda leenahay waxa weeye dareenka shacab markasta inaan cabiro markay faraxsan waa la faraxsanahay markay baroorayaan waa la barooraynaa markay baahi sheegtaana baahida baa naga muuqata marka inta baahi sheegteenba waan gudbinay imikana waan gudbinaynaa waana ku celcelinaynaa saad sheegteen jidka magaalada Dambal loo soo gala ama haga jigaal laga yimaado ama haga dad laga yimaado meel kasto laga soo galay aad buu rafaasan yahay aad buu xun yahay dayacatir degdeg u baahan yahay
weliba kan hadda jigaad ka soo galay soo kale waxaa laga yaabaaba hadday buundada yare la yar habeeyay yara xumaato inuu istaagaba oo gebigeeda meel laga soo gala la garan waayo marka taana dareenka waa in la qabnaa biyihii waad sheegteen hawlo bilow way jiraan oo gudoomiye dhow ii sheegay laakiin ballaadhin buu u baahan yahay leydka iyo hawaday noqotay in badan waan ka waranay qolyaha khusaysan waan kala hadalnay dhibta weyna jirta waxaa weeye birihii iyo wixii lagu soo qaadayay lagu soo tallaalay maadaama ay aada u daaleen oo in badan ay raageen haddana kuwaa la bedelin baa in hal sax lama keenayo kole fikir waxaa iska yar jira aad u malaynaysaan markay madaxdu yimaadaan in nalkii ama teeleega hawada la helo marka kalena la tago kole abasho bahalka inii geysan mayne hawsha haddaan runtii ka hadlo annaga marka madax ahaan nimaano haddii naloo yeelo shacabka naloo qaban maanan aamusneen because annagaan ogoleyn bade intaa la sameeyo oo maxaan yidhahdaa gacan bidixin intaa leeg la sameeyo because waxaa markaas aan ka faraxsannahay shacabku inay helaan annagoo aan weyno laakiin gebigiisaba bedel buu u baahan yahay in badan baan kala hadalnay iminkana insha allah kama daali doono maamulka degmadana hadduu la yidhaahdo iyaguna qaybtooda ay ku lahaan doonaan laakiin idinka markastay mas-uuliinta yimaadaan annagoo maaha saad horey baad sheegi jirteen iminkana aad ku helelisaan amba waan igu dhiirigelinaya inaad sii wadaanna waan igu dhiirigelinaya hawsha kale daadkana de magaalo waxa lagu yaqaanaa marka daadka la farsameeyo haddii markuu daadku soo galo magaaladii dhaneed baa qaaday dhibkeeda leedahay intaana in badan baan ka hadalnay arrimahaas kolay heer deegaan bay khuseeyaan iminkana ciddii khuseysa waan ugu baaqaynaa inay gurma degdega ay magartay halkaa ka gaarsiiyaan si qoraal oo formaalana markaan laabano taan gudbin doonay noqon doonta hadduu la yidhaahdo tan aad soo hadal qaateen ee ku saabsan in dhalinyarada lala tashado hadday tahay maamulka degmada hadday tahay maamulka gobolka city waa tala fiican watashiga hadduu jiraan oo lasii wada haddayna jirin in la bilaabo lasii hoojiyo shacabka cidda bedelaysa waa dhalinyaro taa insha allah iyo shaqo abuurka hadday tahay wixii dana u taagan waa runtii waa baahi muhiima taana insha allah waan la hadli doonaa wixii kale cabasho ka qabtaan ka degma ahaan aan soo hadal qaadeenna way noo qoran yihiin gudoomiyuu la joogaa hogaankuu la joogaa kabinetka kalena intaas la fadhiisano waxaan isla xisaabtamo inuu noqon doonaa waana sababtana loo durtay ka xildhibaan ahaan annagoo shacabka matalo inaad magaratay aan la xisaabtano iyagana markaad idinku la xisaabtantaan ay baahidina soo bandhigtaan inay si degan dhegaystaan laftigeeda waxay ka mid tahay dimuqraadiyeed taana waan dhiirigelin markasta la dhegaysto wixii la qaban kara laga qabto sidoo kale waxaa soo hadal qaadeen qaab dhismeedka dhowaan ka hana qaaday dowlad deegaanka soomaalida waa midaan aada u soo dhaweynayno waad ogtiin saad u aragteen goobo badan oo xuduudaha ku yaala si deegaanka soomaalida la ilaaliyo dadka xuduudaha joogana runtii wixii ka warhayna helaan qaab dhismeed loo sameeyay haddii tahay degmo haddii tahay gobolaha way soo korodhay waa waxa aada loo soo dhaweynaya lagu faraxsan yahay idinkoo gobolka faafan daris lahaana gobolka harawaad ku dhawaaqdeen oo loo baahanyay tirahdana waa xaq waxaad ogaataan waa la ballan qaaday ku dhawaaqista oo bahadhay insha allah kaana lagu dhawaaqi doonaa dambalna waa meel ballaaran oo magaratay wax badan u qalanta taana waan iga maqalay insha allah meel kastana waan gaarsiin doonaa soo ogaada cid kastoo la xidhay hadhiga maanta lagu hayana markasta anagu ka xildhibaan ahaan waan kala hadalnaa si hadda si maxkamad iyo si gudba in la haliyana insha allah dadaalkeeda waan ku jirnaa insha allah war wanaagsan insha allah dhawaan maqlisi baan rajeynayaa laakiin waxaa muhiima saa nii sheegay annagu haddaan xildhibaan nahay inaan mar kasta nii nimaano ugu yaraan maadaamaadna doorateen oo nimatalayna waa nila joognaa markaadna doorateen oo codka noo dhibtiyo maayna mar kalena waa nii baahan nahay dad kala maarmaya ma nihi inaan ilaano baan u nimid wax kala maaha wixii karaankeenana mar kasta waan dadaalaynaa waad ogeed dhowaan inaan dhowr sariira aan keennay dhakhtarka magaalada dambal ku yaalla oo ilaahay noo horgeliyay la keenay safarkii ugu dambeeyay anoo maraykan joogo waad ogeedeen inaan heshiis qalab iyo daweyn caafimaad aan seexay intaan hadda safarku ii bilaabmay qalabkii adhisaaba uu soo galay markaan laabto inaan dhameeyo dambalkeena u bahadhay haddoo la yidhaahdo marka inta karaankeenna waan dadaalaynaa duca waa haggiina waxaan la dafiri karaynin inay dambal baahi dhaba oo la taaban karo aad haddaad ku dhawaaqdeen horeyna jirta insha allah ilaahay inaan noo fuliyaan dhahayna aad yaad ugu mahadsantiin waafajinta maadaamuu ilaahay leeyahay mar kastoon kala tagno ducaya faataha kala tagnaa soo ma
maanta inaad duceysaan aan faatixayno oo markaad tawaltashiga ilaahay nawaafajiyaan ayaan ku dhawaaqi lahaa adeed dowladda والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بسخطك والنار. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا الله. اللهم اني مسعودك من الجنه والجوز يا رب العالمين. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ من عذاب القبر. اللهم اغفر لنا غيثا مقيتا يا رب العالمين. اللهم صل على الفاتح.